horta runtii walaalkayga waa jirtaa sometimes inaan music soo galo muddo aa ku jiro wax yar aa ku jiro haddana la ii waayo waxa waa waana og tahay inaa aniga yani hal meel aanan ahayn oo music entertainment camal aan u imaado adiga hoolihii kaleeto yani personality ha noqoto ama yani gofa ha noqoto ama meel kasta ha noqoto si fiican bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u maleeyaa ku dhaca cadowgayga inaa hurgufa ilaa haddana shimbir aa isdagaalsanna isku xidhnaa ma jirto cadow ayaa si fiican sheehaysaa markaa dhegeysaa waryaha markaa soo galo magaalka aniga cabsada dagaal markaa galaya mafayta waa fanaanka caanka ah ee GC Boy oo mar wax laga weydiinayay waxyaabaha haatan uusan heesaha u soo saarin muddooyinkan ayuu ku sheegay inuu ku mashquulsan yahay arrimo asiga u qaas ah iyo arrimo uu ku sheegay dowladda iyo Rayaan Bajaaj oo dhahaysa GC Boy heesahaaga markaan dhegaysanayo waxaan galaa dagaal minallaahiya haddaba GC Boy dowladda miyaa fankiisa ku dheggan mise arrimo kale ayaa jira warbixinteennan ayaan diiradda ku saari doonaa daawadayaal muuqaalka intaan u gudagelin fadlan laag saar oo muuqaalka laagaree la wadaag saaxiibadaada ku soo biir janaalkeena Ducaysana Media iyo beejkeena Ducaysana Media ku mahadsanid daawade kulanti habboon daawadayaal meel kastoo aad dunida daafeheeda ka joogtaan ku soo dhowaada janaalkeena Ducaysana Media iyo boggeenna Facebook ee Ducaysana Media oo alaaba aan ku soo qaadanno warbixino xasaasiya isla mar ahaantaana markaasi taagan warbixinteennan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa daawadayaal waa fanaanka caanka ah ee GC Boy lagu magacaabo isla mar ahaantaana soo saaray heesay naba aan caadi ahayn oo raaba haddaba fanaankan oo mar la wareysanayay isla mar ahaantaana ka dhex hadlayay live TikTok ayaa waxa uu sheegay muddooyinkan dambe heesihiisa uu u soo saarin arrimo asiga ku saabsan oo asiga uu qaasay arrimo la xiriira governmentiga uu ku sheegay dowladda haddaba dowladdaasi miyaa aatan Soomaaliya mise isaga ayaa arrinkaa ka jawaabaya daawadayaal waxaana sidoo kale uu sheegayaa in isaga iyo weliba koox kale uu la saarnaa gruubka isla mar ahaantaana live-ka ahaa oo ay ka mid ahaayeen Rayaan Bajaaj iyo sidoo kale Ayuub Kaarlo ayuu waxa uu sidoo kale Rayaan Bajaaj ay leedahay heesahaaga markii aan dhegaysanayo GC Boyow waxaan galaa dagaal minallaahiya haddaba ila dhegayso GC Boy oo ka hadlaya waxa uu uga maqan yahay muddooyinkan dambe heesaha iyo sidoo kale in uu ku jiro arrimo ku saabsan isaga xaggiisa iyo sidoo kale weliba dowladda marka Ayuub Kaarlo horta runtii walaalkayga waa jirtaa sometimes inaan music soo galo muddo aa ku jiro wax yar aa ku jiro haddana la ii waayo waxa waa waana og tahay inaa aniga yani hal meel aanan ahayn oo music entertainment camal aan u imaado adiga hoolihii kaleeto yani personality ha noqoto ama yani gofa ha noqoto ama meel kasta ha noqoto inaa yani focuska aa saaro so waqtiyada fasax oo kaleeto markaa helo inaa music ku soo laabto okay musigii sax waaye weli maana ka fiirsan oo yani music badan way jiraan oo qoran oo ilaa adiga like album camal ama wax la jiro oo xareysan so marka waqtiga fiican la helo ugu quruxda badan waxa fiican mogtaa wax inaad ku raaxaysan kartid marka fasax aad ku jirto oo kaleeto time aad u heshid bulshadana aad qanci kartid adigna aad jawi aad ku qaadi kartid so that's the reason why marka aniga aan u maqanahay so on time markii la gaarin waxa waaye waa know dad badan inay sugaa dhaan maxaa aniga fanka iska dhaafay ma ka baxay tabliiq moo noqday heesahaaga waa ku bootaya si fiican bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u maleeyaa ku dhaca cadowgayga inaa hurgufa ilaa haddana shimbir aa isdagaalsanna isku xidhnaa ma jirto cadow ayaa sheehaysaa markaa dhegeysaa waryaha markaa soo galo magaalka aniga cabsada dagaal markaa galaya mafayta sidaad u daawato warbixinada iyo muuqaalada aan soo gelino boggeenna Facebook ee Ducaysana Media iyo YouTube-keena Ducaysana Media ku soo biir oo subscribe dhe Ducaysana Media YouTube follow dheh oo like saar page-keena Ducaysana Media ku mahadsanid daawade